bismillahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta xiisadeen wuxuu ka hadli doontaa saacadana ka hadli doonaa maanta insha allah saacadan magaceeda waxaa loo yaqaanaa blood pressure monitor baa lahaa sidoo kale magaceeda caanka waxaa loo yaqaanaa sphygmomanometer baa lahaa saacadan inta badan waxaa lagu cabiraa cadaadiska dhiigga lagu cabiraa inuu cadaadiska dhiigga kacsan yahay iyo inuu dhacsan yahay iyo normalkii loogu talagalay ayaa lagu cabiraa saacadan waxaa loo yaqaanaa sphygmomanometer ama waxaa loo yaqaanaa blood pressure monitor baa lahaa waa saacada cadaadiska dhiigga saacaddan cadaadiska dhiigga la yiraahdo oo sphygmomanometerku laba qaybood buu qaybsantaa mid waxaa loo yaqaanaa digital tan digitalka ah waa tan waxay ku shaqeysaa batteriga gadaal dambe haddii la furo maxay leedahay batteri bay leedahay saacadda batteriga leh waxaa loo yaqaanaa maxay digital sphygmomanometer baa lahaa haddii kalena nooca labaad waxaa loo yaqaanaa manual baa lahaa manualku wuxuu kaga duwan yahay kan manual wuxuu laba bambule la bamgarayo manual baa lahaa manual marka ama manual ha ahaato ama digital ha ahaato saacadda sphygmomanometerka la yiraahdo waxay u qaybsantaa saddex qaybood bay u qaybsantaa qaybtan oo loo yaqaano watch oo saacadii ah oo batteriga marka la geliyo la daari doono iyadoo ay qalabkeeda kale isku xiri doono saacadda marka waxay sheegtaa sida ka muuqata systolic diastolic iyo pulse rate wuxuu yahay dhiiggii waxa weeye contractionkii wadnaha ka dhalanayay ee baxayay iyo dhiigga wadnaha soo gelayay iyo dhiig waxa weeye pulse rate ama garaaci wadnihi marka labadan sare waxaa loo yaqaanaa blood pressure oo cadaadiska dhiigga kan hoose waxaa loo yaqaanaa pulse rate waa garaaca wadnaha saacadda marka si qofka loogu cabiro intayna u gelin shuruudaheeda waxaa muhiim ah in iyada qaybaheeda la barto qaybtan watch baa la yihahdaa qaybatan waxaa loo yaqaanaa tubekii weeye ama waa tubeka isku xidhi lahaa saacadda iyo qaybta kale qaybta saddexaad ee saacadda waxaa loo yaqaanaa waa kaf wey maxaa loo yaqaanaa kaf baa lahaa kaf maxaa leedaha kaf waa saacadda waxay u qaybsantaa kaf iyo tube iyo watch saddex qaybood buu qaybsantaa marka waxaa loo baahan in kafka iyo tubeka iyo watchka la isku xidho marka koowaad waxaa la isku xidhayaa waxaa la yihahdaa kafkii baa soo qaadanaysaa kafka afka yar buu leeyahay afka yar oo tubeka baa ku xidhaysaa marka aad ku xidhid saasa marka waxaa sugu kaa diyaarsan tubekii iyo kafkii waa ku diyaarsan yihiin intaa markaad ku xidhatid kadibna tubeka dhankiisa kale waxaa ku xidhaysaa maxay saacadda sphygmomanometerka dhinaceeda gelinaysaa marka aad gelisid markaasi saacaddii waxay tahay maxay complete sphygmomanometer saacad dhammaystiran oo lagu cabiro ka cadaadiska dhiigga saacadda marka cadaadiska dhiigga qofka marka lagaga cabirayo shuruudaha jira waxa weeye in la qaato consentiga ama ogolaanshaha ogolaanshuhu waxa weeye qofku inuu ku ogolaado in cadaadiska dhiigga ka cabirto mar walba oo shaqa u qabanaysid bukaanka oo aad weliba khaasatan vital signs ama calaamadaha nolosha aad ka cabiraysid ama aad durin samaynaysid waxaa muhiim ah qofku in la qaato waxa la yaqaan consent waxa la yaqaan ogolaansho sidee baan ku helayaa marka ogolaansho waxaan ku heli karaa talaabada koowaad introduce yourself qofka naftaada waa inaad soo warbixisaa waxaad tahay isu sheegtid inaad tahay nursing inaad tahay